marka ugu horeysa gudoomiyaha degmada Carmo, gudoomiyaha jaamacadda, mas'uuliyiinta kale oo xafladda ka soo qayb galaysa, gudoomiyaha maxkamadda, xogayaha degmada, maamulayaasha xildhibaanada, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, waxaa caawa farxad noo ah in halakan laga daahfurayo jaamacadda City Court oo ah jaamacad ku timi waqtigeedii iyo xilligeedii. sida wada ognahay degmada deegaamo badan baa hoos yimaada, arday badan baana ka baxda sanad kasta. ardaydaas waxay aadi jireen Boosaaso iyo dhulka shisheeya. waxaa fursad weyn noo ah in maanta aan meel la aadeen oo degmadii jaamacad laga furay. bulshadana waxaa lagu wacyigelinayaa inay jaamacadda ay ardada keenaan. annaguna fariinta waa qaadeynaa, waayo waxaan ognahay dad badan oo duruuftu aan u saamaxayn ama ay ku adkayd inay meelo kale ardada ay jaamacado kala doonaan, laakiin maanta ay u tahay fursad in gurigoodii loogu keenay jaamacad. waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka soo shaqaysay. waqti badan baa la geliyey, juhdi badan baa la geliyey, laakiin maanta waxaa la joogaa xilligii la guran lahaa. bulshadana waxaa laga rabaa jaamacadda haddaanay helin waxay ku socon lahayd inaanay joogin. marka waxaa laga rabaa waalidiinta in ardayda dhamaysay dugsiga sare aanay meel kale aadin, jaamacadda la keeno si jaamacaddu inoogu socoto. waxaan kaloo u mahadcelinaya, waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in kulliyadda beeraha aan moodo in loo dooray, waayo degmadu waa dhul beereed. gobolka bari waxaa la is odhan karaa waa degmada Carmo lamarmo uga tahay beeraha. ardayduna waxay helayaan practical, barookla ceel daahir baa ah, dhul badan baa ah, si toosaba waxay helayaan practical.